daawada hadda waxa soo gaaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa wafdi ka socda dawladda federaalka wadanka Ethiopia kuwaas oo ka qayb gali doona caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalinta bari toban lagu qaban doono magaalada Hargeysa. wufuudda ka socda dawladda federaalka Ethiopia waxay qayb ka yihiin wufuud tiro badan oo lagu casumay xafladaas inay ka qayb galaan oo isugu jira wadamada dariska ah diblomaasiyiin iyo mas'uuliyiin kala duwan oo la doonayay inay ka qayb galaan xafladaasi. daawada hadda waxaan la taaganahay safiirka Soomaaliland ee wadanka Ethiopia ambassador Ali Shombe oo isaguna waftigaasi qayb ka ahaa. ambassador waxaad nooga warbixisaa waftiga ka socda dawladda federaalka Ethiopia waxay ka kooban yihiin. bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ku jira laba senior minister Maxamuud Dirir Geedi oo ahaa wasiirkii gaadiidka iyo transportka marna dhaqanka imikana ah ninka madaxda ka xafiiska wadamada dariska iyo igad waxa kale oo ku jira ambassador Burhan oo hore u haysan xafiiskaas joogay imikana xafiis cusub loo magacaabay oo Afrikada Bariya waxa isna ku jira ambassador Shamsuddin oo ahaan jiray wasiir ku-xigeenka macdanta marka waxay ka soo qayb galeen halkan iyadoo runtii ay yihiin kolkaad eegto in xiriirka ay la leeyihiin dalalka dariska ah ninkii ugu darajada sareeyay oo Maxamuud Dirir Geedi. Cabdishakuur Day Maxamed, Hon Cable TV, Hargeysa.